munaasabadani oo ahayd mid seer sare loo soo agaasimay isla markaana ka qabsoontay hoolka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal ayaa waxa ka soo qayb galay munaasabadani maamulka gobolkani Awdal kan degmada Boorama mas'uuliyiinka kala socotay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaaladani Boorama munaasabadan ayaa ujeedkeedu ahaa xil wareejinta isku duwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal oo dhawaan xilkaasi loo soo magacaabay Professor Cheeke Cismaan Ciye waxaana xilka wareejinayay Professor Umar Suldaan Indhamood oo ahaa isku duwihii hore wasaaradda waxbarashada gobolkani Awdal ugu horeyn waxa goobtaasi ka hadlay maamulka gobolkani Awdal kan degmada Boorama waxaana hadaladoodu u badnaayeen soo dhaweyn iyo saboot isku saabsan mas'uuliyiintan xilka maanta la kala wareegayay waxaana kamid ah hadaladoodii runtii Umar aad baan ugu mahadnaqayaa maanta xilka wareejinaya mar labaad waxaan isku duwaha cusub ku soo dhaweynaynaa gobolka waxaan ku soo dhaweynaynaa shaqadan uu hayaa waa shaqo runtii aan waan kaga seexanay Umar intii uu joogay iskuul halkan aan mudaharaadayay iskuul baa buuqayay macallimiin baa ay kanay runtii wuu naga xasladay isaga iyo hawlwadeennadiisu adigana waxaan ka rajaynaynaa odaynimadii iyo kartidii iyo dadaalkii iyo soo jeedkii waxbarashada in aad talo badan ka qaadato mudan baad leedahay waa wax taariikhda galaya qofkoo xilkii uu hayay nadiif kaga tagayo shilin maanta hay'adda dhana uu maamulayay gobolka 100 shilin isagoo diina aan wareejinayn waxay mudayn hay'adaha kalena inay sidaas kale ugu daydaan dhankooda waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay labada mas'uul ee xilka maanta la kala wareegayay ee kala ah Professor Cheeke Cismaan Ciye oo ah isku duwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolkani Awdal iyo mas'uulka xilkaasi wareejinaya Professor Umar Suldaan Indhamood cibaaro waxa ugu firan xaruntan guud ee gobolka ee waxbarashada nooca ay tahay maanta insha Allah inuu Ilaahay go asturo xilkaan madaxa u qaaday on wax fiican inay modern marka wax laga sugay wax badan ba laga haysanaa dhalinyar baan ahay mustaqbal bay sugayaan insha Allah inaan mustaqbalkayga si u wanaagsanaado waa inaan dadaal badan geliyaa oo in badan soo jeedaa